السلام عليكم. waxay soo gaaray fariin ka imaaday hooyo Soomaaliyeed leh wiilasheeda ayaan kala soo cararay Mareykanka ayaga igu daran gabdhaha waa iska caadi halkan kelmadda waa iska caadi waxay ula jeedaa khatarta ay wiilasha wajahayaan in ay ka daran tahay midda ay gabdhuhu wajihi karaan arrinku waagi hore hadduu ahaa waxaan ka baqayaa inay gabadheeda suuqa gasho inay iga fasahaado inay rag la saaxiibto maanta waxaan ka baqayaa in wiilkayga la iga bedelo ficlan hooyadan aan ka hadlayno daqiiqadan dalkii ayay joogtaa waxay go'aansatay inay dalkii aado sababtu maxay tahay wiilkayga ayaan u baqayaa in la iga bedelo arrinku ma ahan mid ay muslimiinta kaliya wajahayaan waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal aabba ayaga ka mid ah filintu soo dhaaftay naf ahaan burbursan in uu miyirka beela qarka u saaran wiilkiisa oo uu ku taamayay inuu sargaal ciidan u noqdo maadaama uu ciidanka ku jiray ayaa la horkeenay asagoo sidaan ah Sit right here. xalaqadan waa mid wacyi ah waxaadna arki doontaa halaaga wadadaas tusaalooyin kala duwan ayaana kuu muujin doonaa iyo muuqaalo kala duwan haddaba ku soo dhowaada yaa ahlan wasahlan kusoo dhawaada mawduuceena siyaasadaha bidixda galbeedka markaad fiiriso waxaad soo xasuusanaysaa aayad ku jirta suuratu racd oo ilaahay uu ku leeyahay walaa yazaalu aladiina kafaruu tusiibuhum bima sanacuu qaaricatun aw taxullu qariiban min daarihim xataa ya'tiya wacdullah maraykanka maalmihii re'el soo dhaafay dilalka ugu badan waxaa geysanaya dadkaas ee siyaasadaha bidixda ku qancisay in ay jinsigooda bedelaan kadibna ay isu bedeleen noolayaal wax naxariis aanan lahayn bini aadamka oo dhanna cadaawad u hayo Police say the shooter conducted surveillance of the school building before the attack. New evidence we got today gives a timeline of what the shooter did leading up to the shooting, from the moment they left home to their death. Here's News 2's Maya Owens. At about 10:13 a.m., Audrey shot through the glass doors at the side entrance of the school. She made entry into the school and made her way to the second floor. She fired at students and employees. She appeared to shoot at anyone she came in contact with. in mid ayaga ka mid ah uu soo qaato qori booba kadibna uu aado iskuulada hoose ee carruurta yaryar ay dhigtaan kadibna tobaneeyo uu dilo cadaawad aan taariikhda bini aadamka lagu arag aayaddu waxay tilmaamaysaa wax ay ayagu sameeyaan bima sanacu kadibna isu bedeleen musiibo laqayso sababtoo ah waa wax ayaga ay sameeyaan arrinkan maahan mid fitra ilaahay bini aadamka sidaas uma abuurin ayagaa samaynayo aanu imaano qodobka ugu weyn xalaqadan ila sawira mowqifkan waxaa tahay aabba jecel carruurtiisa kuna dadaalay inay guulaystaan gabdhuhu ay gabdho noqdaan wiilashuna rag ay noqdaan habeen iyo maalin ayaad arrinkan ku jirtay saacado badan ayaad shaqaysaa wiilkaada wuu weynaaday kadibna ciidanka ayuu galay laakiin in uu sababo inaad sidan u oydo inta aanu gudaha u sii gelin mawduucan wax yar aan mawduuca meel ku yara xirno aan fiirina khatar kale oo arrinkan aanan ka fogayn laakiin markaan ah YouTube-ka haddii aan ku weydiiyey su'aashan ii sheeg YouTuberka ugu weyn YouTube-ka dhinaca daawashada muuqaaladiisa ay 100 milyan oo qof daawadaan caana carruurtuna ay jecel yihiin haddii ay jawaabtaadu tahay Mr Beast waa sax waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso waa maxay khatarta ku jirta arrinkan Mr Beast kanaalkiisa ninkan waxaa la shaqeeyay mid ay walaalo yihiin mar walba la taagan mar walba muuqaaladiisa ka soo baxo wuxuu ahaa nin caadi ah xaas leh carruur leh micnaha jir ragaad leh laakiin warbaahinta bidixda iyo xukuumadaha arrinkan buunbuuninaya dhinac xun qofkii aanan iimaan dhab lahayn waxaa sahlan in uu dabinkooda ku dhaco ninkan la dhashay Mr Beast wuxuu bilaabay qaadashada hormoonaadka dumarka dadku waxay isweydiinayeen maxaa si ka ah sida inay arkeen cidiyaha waxa uu marsaday dharka uu xiranayo timihiisa wajigiisa dadku waxay dareemeen inay wax isbedeleen ilaa uu ku dhawaaqay marka dambe inuu ku dhacay godka qashin qubka bishan hadda aan ku jirno ee afraad ama abriil channelkiisa dad badan ayaa ka tagay iska daaya daawashadiisa oo aniga aan ka mid ahay arrinka khatarta lama taqaana markaan kanaalkan ka hadlayno kanaalkan ay malaayiin qof ku xiran yihiin waa in muuqaaladiisa uu luuqado kale si cod ahaan u bedelo xitaa ma ahan qoraal wuxuu saaraa waxaad ku tilmaami karta macnaha dablaja cod ayuu saaraa waana kanaal ilaa heer shactira ah qosol ah xamaas leh dadku ay daawadaan carruurtuna ay jecel yihiin inta badan markaa muuqaaladiisa waa jaalanjiyo dadkoo dhan ay daawan karaan weliba carruurta ama dadka da'da yaryar haddaba waxaa jiro Mr Beast group oo la shaqaynayay oo mar walban markaasi muuqaalada la sameynaaday ee noqoto jaalanji iyo waxyaabo kale haddana groupkan marka la sii kala saaro waxa uu sii dhow qofkan oo la yiraahdo Chris Tyson
laakiin carruurtu markay maalin walba daawanayaan qof saas oo kale ah marka dambe ay u arki doonaan kaanuu inuu yahay oo kale shay iska caadi ah arrinka cajiibka ma taqaanaan asaga iyo ninkan la dhashay walaalkii Mr Beast ilaa heer waxaad ku tilmaami kartaa siyaasadaha inay midig yihiin macnaha lid ku ah siyaasadaha bidixda yacni diidan anshaxumada xitaa muuqaallo waxay samayn jireen ay ku jeesjeesayaan qoomkaas waa markan Mareykanka ka hadlayna macnaha midigta iyo bidixdooda midigta jamhuuriga ilaa heer macnaha waxay aaminsan yihiin fitrada caadiga halkan kama hadlayna mid kana nacab ama mid kana jecel jamhuuriyiinta ilaa heer waa muxaafidiin macnaha diin ahaan laakiin waxaad moodaa sidoo kale inay dabankan ku dhaceen intii kadib bishan hadda aan ku jirno ee April bilowgeeda laba oo kale meelahaas markay ahayd ninkii Twitterku si toos ah u soo dhigay marka wuxuu yiri anigu waan isbedelay oo macnaha transgender aan ahay yani waxaan ka soo tagay ninnimo oo waxaan aaday dumarnimo yani waa sidoo kale dhacay moogtahay aanu imaan hadaba aabahan gablamay wiilka halkan feeri macnaha wuxuu leeyahay wuxuu ahaa arrin adag in aan doorto noqoshada dumar ehelkayga waan ogaa in ay diidayaan arrinkan I just want you to understand that this has nothing to do with how you raised me or anything like that and I just want you to be okay with me being transgender markaad fiiriso midkaas la dhashay Mr Beast iyo midkan yani waxaad arkaysaa inay rag dabiici ah ayna xitaa wax dhibaato ayna ka sheeganaynin xaasas leh yani carruur dhalay umuurahooda ay caadi yihiin laakiin jinsigaada bedel waxay ka dhigeen siyaasadaha galbeedka markaan fiirinayno shay guul ah kaano shay lagu faano oo kale geesinimo ah markaad maqasho aayadda ah inhum ilaa kala nacaami bal hum adal waxaa macquula inaad isdhaxdo siday xoolo u yihiin ama uga leetaan ayagoo waxaanu teknolojiyad samaynayo ayagoo gantaaladaas hawada sare u diraayo laakiin indhahada ayaad ku aragtaa hadda inay ka xun yihiin xoolaha ma jiro orgi leh yani waa inay rin noqda ama lax leh waa in wan la iga dhiga xoolaha haddii aad 10 orgi meel ku xarayso ayagoo sidooda ayaad u imaan mid damcaya una jirin laakiin waan aragnaa hadda bidixda ragguna ha isguursado dumarkan ha isguursado taasoo ka dhigan bini'aadamku hadda bargo halkan aabbaha wuxuu leeyahay fiiri maalinkii uu 2 sano jiray wiilkayga ayaan ku soo bilaabay inaan raganimo ku koriyo inaan raganimo ku tarbiyeeyo aabbaha fiiri micnaha neefta waxaad muddo nafta inay ka bixi rabto wajiga aabbaha ila fiiri waxa la weydiinaya maxaad dareemaysaa Dr. Philkan ayaa weydiinaya maxaad dareemaysaa wuxuu leeyahay waxaan dareemayaa xaalad xun eber ayaan ahay waan burbursanahay I'm hurt bad really bad meeshan qofkan waa wiilkaane wuxuu leeyahay adiga yani wax qalad ma aadan samaynin xitaa aaba ma adeegsanayo wax qalad ma aadan samaynin waana kelmad matalaysa 100% aqliyada bidixda hadii aadan adiga cidna dhibaynin siday aaminsan yihiin waxaad rabtid samee arrinka xiriir qaraabo aabanimo hooyanimo yani xisaabtooda kuma jiro adiga lagu dhahaa wuxuu leeyahay wax qalad ma aadan samaynin maxaad u murugaysan tahay aniga sameeyay waxa la weydiinaya halkan sidaad u aragtaa xaaladda aabaha uu hadda ku sugan yahay waxaan arkaa in uu murugaysan yahay sidoo kale ma aqaano in uu xanaaqsan yahay ma aqaano just seeing his reaction how I don't know if it was anger or if it was just upset sidoo kale waxay ka sameeyeen yihiin sida aan soo arkeen kuwaas carruurta leynayay xaasidnimada iyo qalbi adayga micnaha inay dhagax isu bedeleen aabaha muxuu sidan ugu murugoonayaa wiilku wuu nool yahay muuna dhimanin muxuu sidan ugu murugaysan yahay dhinaca akhlaaqda markii laga soo tago arrinkan wuxuu ka dhigay micnaha geeri wiilkan inuu dhintay shakilaan inuu dhintay sababtoo ah wadadan cidii qaada yani waxa u dambeynaysa in ayaga isdilaan ama dad kala laayaan kadibna xabsiga la dhigo inta ka dhimanayaan yani sidii maalmihii la soo dhaafay arkaynay in ay noqdaan bini aadam caadi ah shaqaysto hooyooyin ama aabooyin waa mid mustaxiil ah micnaha waxay ka dhigantay wiilkan in uu ku daayay salaamu calaykum inay tahay daliil cad ma u haysa arrinkan ha midkan waa mid ingiriis ah oo ku dhacay dabanka siyaasadaha bidixda kadibna isu bedelay qof dumar ah laakiin ka shalaayay go'aansadayna in uu dib ugu soo laabto ragnimadiisii hore muuqaal ayaan kula wadaagi doonaa wax yar kadib oo uu arrinkan ku sharxayo ninkan markuu isbedelay noloshiisa waxay isu bedeshay jaxiimo madow oo aanan laga bixi karin murugta cudurrada micnaha qof ilaahay raganimo u abuuray ama dumarnimo laakiin hormoonaad kale lagu duraayo waad qiyaasi kartaan xaaladda jirkiisa kusoo dhawo muuqaalkan asagoo la wareysanayo So why did you decide to become a Korean woman? Who told you that was possible? So obviously I've had a difficult time with my gender identity struggles. I was never unhappy with how I looked. So I started changing. I started dressing as a Korean woman and I realized that was a big mistake and I just want to be a boy.
But, you know, is it any wonder people like me and young people want to change their gender when we have the normalization of this in our schools in this country? Children are taught from a young age, from the age of 5 in some cases, that it's okay to change their gender. It's okay to, you know, wear a skirt. It's okay for a boy to use a gender-neutral toilet when it puts girls at risk. This is the new norm, and schools are teaching about toxic masculinity. You know, Tucker, what happened years ago when kids used to go to school, they used to idolize Superman and astronauts. Now kids are being pushed this radical ideology. muuqaaladooda runtii markaad aragto yani waad ka yaqiiqsoon cid aqbali kartana ma lahan wax mustaqbal u leeyihiina ma lahan waana dariiqa halaaga waana dariiqa xiran wax yar fiiri warkan qodobkan ila fiiri shirkad maraykan ah caan ah samaysana beerada audu billah nooc khamriga kamida ayaa khasaartay $6 bilyan sababtu maxay tahay mid kamida qoomkaas isbedelay ee muuqaalkiisa laga yaqiiqsoonayo ayay u doorteen inuu u noqdo waji xayeysiin waana runtii war murugo u ah bidixda in weli dadka ama bini'aadamka ama galbeed ha ahaadeen ama muslimiin ha ahaadeen intooda badan weli ay fitrada saliimka haystaan inay caadi yihiin maqaayadaha maraykanka hoteelada dhammaan way diideen ma gadanayna khamrigiina yani intaan wax kale la gaarin muuqaaladooda waa lagu yaqiiqsoon markaad aragtay yani xitaa ma daawan kartid allaha aruuriyay qof arrinkan ka hadlaya muuqaaladooda daawanaya ama soo aruurinaya cunno haddii ku agtaale ma cuni kartid hadalkan maan hadalan iska leeyahay runtii ma cuni kartid cunno haddii ku agtaalo wajiyadadana aad fiirisa ama kuwa dumarka iska dhigay ama ragga iska dhigay shay waxaa weeye micnaha muqaasasa lagu yaqiiqsoonaya sida uu yiri oo kale Yoweri Museveni disgusting Of course, they are disgusting. midaas waa wadada shaytaanka midaas waa wadada halaag midaas waa wadada aanan ka soo noqoshada lahayn hadda anaga waajibkana saaran waa aabayaal haddaan nahay alxamdulilah anigu ayaa ii jooga idinkana intii caruur ay u joogaan in wixii ay daawanayaan aad la socotaan waqtigeena ugu badan inaad caruurtiina la qaadataan in adinka aad dhistaan internetka inuuna noqonin isha ugu weyn ee macluumada ay ka helayaan caruurteenna annaga mas'uulka ah waa inaan ku dadaalnaa sidii aan u tarbiyayn lahayn mawduucan intaanu ku eegay aniga Cumar Inshaar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته